بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرتي شرفت قيمها يقايها بدن أصحاب تيدا بانلكا بروفيسوركا جنرال محمد حاشي سعاد لبدا وسير ابتياشي حرسي محمود وحالدكم السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنادو مهدينا يا انسباير جروب يا محمد إليك runtii inoo sahlay ama inoo fududeeyay inaynu noqonno debating society waana waxa lagu yaqaano bulshooyinka ilbaxa ah ee horu maray inay debates noocan qabsadaan ay doodaan oo ay noqoto idea against idea aanay noqon clan against clan ama qori against qori taana aad baan ugu mahadinayaa inspire group iyo maxamed ilig waxaan insha Allah taala anigu waan كدوانانا speakers كي هادلي وحنسكو دايا narrative كالو كدوان أما ودا كلا ينان قادو وحنكو سو هالقا بسانا يا انجينير محمد حاشي وهذا الكيس كو جبا جبايي وحاي نرماينا إنو نقولنا لابدل أو اسبربرا أو وحودا قبصدا أو ولا لا جوابت مركز سؤال عاوة توبيكا أنا كبحنا يا وهي waxay ku jirtaa hadalka maxamed oo haw sidee baynu ku noqonaynaa waa inaynu wada hadalnaa ilaa waxba iskaga keensiya waxba iskaga keen jira waxbaynu wada ahaan jirnay wixii way burbureen si simple aynu wada fahmayno faa'iidada ay leedahay Soomaaliya oo lala hadlo iyo inaynu wada hadalnaa waxa laga soo sheekeeyo faraha badan oo dhan waxa si dheer oo ku daraya cid kasta oo ina danaysa ama regionka inuu ku noolahay ama developmental partners ka international community la macaamilo intuba waxay isku raacsan yihiin inaynu wada hadallo inaga marka danta inoogu jirtaa waxa weeye Soomaaliya waxay isticmaalaysaa ama ay ka faa'iideysataa waxaynu wada lahayn sharciyadii aynu wada lahayn ayay isticmaashaa kursigii UN-ka ee British Somaliland iyo Italian Somaliland ay wada apply gareeyeen hal kursi bay wada codsadeen kiibay ku fadhiyaan kiibay iyagu ka faa'iideystaan arrimaha kale laga sheekeeyay ee ay ka mid tahay airspace iyo hawada postal code kii aynu wada lahayn oo hadda weegiina dhaafay u soo dhamaaday iyagu ay yeesheen country code kan aynu isticmaalay communication keena 252 oo iyana ay u dadaalayaan oo wax yar ay uga dhimayeen la soo wareegaan waxyaabaha soo dhan waa waxaynu wada leenahay marka waxaynu wada lahayn hadii ayna wada hadal kaga doonin ma dagaal baynu kaga doonaynaa way su'aashu muhiimadaas ay leedahay iyo waxyaabo fara badan oo kale oo aynu wada lahayn Soomaaliya hadda iyadoo si gaar ah oo isticmaasho taantaasaan uga baxayaa taariikhda wada hadaladii 2012 ilaa 2014 dhexmaray Soomaaliya iyo Somaliland wasiirada ka sheekeeyay إلى 2014 ديسمبر وحي لغا سو بلابا ودا هذا لما aanay dhicin oo wad la socotaan inta hadan ka gudbo kayska Somaliland inay wadan ahayd 26 June 1960 cid iskuma khilaafsana waa history waa fact waa xaqiiqo taalo weeyaan inaga marka waxaan aaminsanahay doodeenu markasta waxay u badan tahay victimhood in aynu ka hadallo dhibaatooyin nagu dhacay iyo waxayna soo maray arintaasi wixii dhacay oo rejiimkii hadda laga sheekeeyay ku sameeyay Soomaali by the way ma ahayn kaliya Somaliland iyo gobolada waqooyi dhibaatadu kuma dhiceen dhibaatadu waxay ka bilaabantay taariikh memory-goona aanu selective noqon waxay ka bilaabantay 1977 78 79 wixii rejiimkaasi ku sameeyay magaalada Gaalkacyo Garowe inta u dhaxaysa ee taangiyada lagu gubay tuulooyin baraago dad waa wax rejiimku geystay bay ahayd inaga inagu dhacday gobolada waqooyi ku dhacday kaliya waxay ahayd tii ugu dambeysay uguna miisaanka weynayd waxaan kala doonayaa inaan xusuusiyo reer Somaliland dhibaatooyinka inagu dhacay yaa inoo geysteen dawlado kamay bilaaban halka taleex 1920 حادوكتين ديارة على قراعي دad reer Somaliland lagu xasuuqay iyo xoolahoodii
taariikhda waxaad moodaa inaynu ismoodsiino waynu isilowsiinaa markaanu ka hadlayno dhibaatooyinka inagu dhacay memorygan yaanu selective noqon aynu ka wada hadalno dowladda ingiriiska oo dowladaha isugu dhownahay marka la eego qadiyadeenna inoogu dhow ina difaacday laaxad weli miyaynu weydiisanay compensation iyo inay ka garaabaan waxa ay nagu sameeyeen idinkaan idin weeyey waa maya marka Somaliland iyo historygeeda iyo wixii dhacay yaanay noqon wax dad gaar difaacdaan ee ha noqoto waxayna wada difaacano aynu wada leenahay aad baan u soo dhaweynayaa pointiska professorku uu taxay cilmiyeysan ee sida lagu gelay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxaan uga baxayaana waqtiga ilaalinaya anigu labada wasiir abtiyaashay iyagu goobjoog bay ka ahaayeen wada hadalladii marka taariikh badan baa ka guuxaysay waqtiga oo idin dhaqaalaynaya waxaan uga baxayaa inagu waxaynu ahayn wadan jiray 26 June 1960 doodeenu halkaasay fadhidaa maalinta ugu muhiimsan inagu aynu inta weeyaan maalintii aynu wadan weeyaan waxa markaa anigu aan qabaa oo soo jeedinayaa ilaa xadoodeena halka inaynu xoojino inaynaan inaga muuqan bitterness ama dad caraysan dad cabanaya maanta inaga dhaana wadan baynu nahay institutions u dhisan yihiin danihiisa maamusho for 27-28 nabadgelyo haysta inaga ayaa dhaana iyaga aynu ka cabanayno historically waxay nagu sameeyeen maanta inaga dhaana marka arrinta inaynu xoojino u baahan adkeen waxa weeyaan our nationhood qarannimadeena taasina waxay ka bilaamaysaa gudaheena waxa la isku hayaan waxa weeye ugu weyni border ma jira mise ma jiro inaga in border jiro inoo dhaxay inaga iyo Soomaaliya iyana waxay leeyihiin border ma jirin halka waxa ka dhalanaysa borderradeena iyo dadka degan iyo gobolada degan laftoodu inay inala qaataan ideadan oo ay noqdaan ownership ay dareemaan iyo inay difaacanayaan ee aanay noqon waxaynu ka difaacno Hargeysa uun aanay noqon intaas aan ku soo koobayaa waxaan example u soo qaadanayaa waxa weeyaan on a personal level ama wadan marka la eego laguma dhiso ciilqab iyo caro iyo cabasho laguma dhiso waxa lagu dhisaa wixii dhacay waa history waa facts la ilaawi maayo laakiin in laga socdo classical example na waxa inoo wadanka Rwanda oo wada garanaysaan aad baad baasantiin